بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لما أنتين ومدى مخلوق أنت عليك الرير قرولقود إلى حالة إلى ساكا وفد ذوه قامين يوم دوميها حسبك مشرح مدحوينها مصبيحي يوفد بلارن سيدا وين سو دويي أسلام الليلي دفري سوريي قابلي رق iyo dumarka iyo waayeelku ilaa xalay habeen barkii noo shaqeynayay soo dhawaynta aad baan idinka mahad celinaynaa jasaakumullahu khayr wa aad baan noo sharaftay ilaahay idin sharafo waxaan kolley ugu horeysiinayaa diiwaangelinta sida madaxdii ugu horeysay sheegtay ee kaadhka la qaadanayo xil weyn iska saaro yaa waxba idinka baylihin waa mustaqbalkii waa tii wax lagu dooranayay musharaxaad jeceshahay xisbiga kulmiye waa taa codka ugu hiilinayseen waa tii baarlamaanka lagu soo saarayey waa tii golaha deegaanka lagu soo saarayey yar iyo weyn ka kaca fadhiga ka kaca oo kaadhka qaata inta hadhay intay wixii naga baylaaday waxa miyi jooga waxa meelaha xoolaha ku maqan alla soo ururiyo kaadhka hal la qaato hal la dadaalo taasu taa weeye talabaad waa la tartamayaa oo annagu daylaa iyo maalmahanba waxaan ood weynaanu soo marray degmooyinkiisa xaaji saalax riyo xidho duruqsi kugaasoo dhan baanu soo marray iyo degmooyinka kale ka sokeeya ee faraha badan leh ilaa iyo maanta aanu joogno magaalada qorolugud runtii sida la soo dhoweeyey xisbiga iyo taageerada loo muujiyey iyo makhluuqa dee halkanna waa aragtaan inta kalena malaha tiifiyadaa ka daawateen laakiin waxaa soo baxay beri baa waxaa la yidhi ninbaa wuxuu gabiyo wuxuu yidhi afyaqaanku taariikhda waa ku andacoodaay hadduunbaa ilaaq laga dhigto aaran baaskaca niman baa ujeeddadu la tahay taanaa idhi wixiiba dee taanaa idhi unbay dee noqotay waxaad arkaysaa iminka ma laga sheekaynayay in ragga waaweyn oo leh kulmiye laguma soo dhoweyn burco berina waxaa arkaysaano maqlaysaano meelaha ka arkaysaa qaarle qorlugud kulmiye laguma soo dhoweyn dee waxaasu siyaasad maahee waa iska dee hadal meel waaye waxba laguma tiigaalo codka intay burco ka haystaan iyo intay gobolka ka haystaanna waaba noo tirsan yahayba gebigiisuba waa noo tirsan yahay waxaa haddaynu nahay reer qorolugud iyo deegaankan horena kulmiyaynu ahayn xisbiga iminka xaakimkaa waxaynu nahay dadkii soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed silaanya waa xisbigu aasaasay waa xisbigaynu ka wada mid ahayn dhammaan muuse iyo madaxda halkan fadhida iyana waa aasaasayaashii waa raggii la aasaasay madaxweynaha waxaa maanta sharaf u ah oo taariikh u ah in xukuumaddiisiina aflaxday oo xukuumaddii waxqabadka noqotay xisbigiisina dhisan yahayoo musharaxii beddel lahaana diyaar yahay welina uu yahay xisbiga dalka ugu xoogga weyn leegu awoodda badan leegu taageerada badan madaxweynaha taasaa horta sharaf u ah dhammaanteen taageerayaasheenna kulmiyana taasaa sharaf inoo wada innagu waa ballamaynaa oo dee taageeradii waa ku ballannay waxaynu ku ballamaynaa waana isku soo noqon doonnaa haddii alla ka dhigo hadal badanna waa is odhan doonnaa xilliyada doorashada iyo kaambeynku soo dhowaadeen maanta markii aynu soo saarray axmed maxamed maxamuud silaanyo codkaynu bixinnay iyo cududdaynu ku soo saarray waa ogey maanta oo uu muuse biixi sharaxan yahay bay inagaga xil weyn tahay haddaynu nahay reer qorolugud iyo deegaankanba waxay inoogaga xil weyn tahay waxaa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xisbigii kulmiye iyo dawladdii kulmiye ee la dhisay ee kulmiyaha gees ilaa gees codkiisa uu ku soo saaray ayaa dhisan xisbilxaakimkii oo taagan oo dawladdina dhinac ka dhisan tahay dhinacna xisbiga ka tartamayo innaga xil gaarayna saaran
انت هذا كنت انتونين برعو حسبه كلمية وحكاها هلاي هذا الكلام هذا دقيست شنية الضباط نكون بقى على قبر هرجيسة يدي جامدة ينتاكو حيران وإلى قبل هي وحكاها هلاي بقول يلا واتنكم صور والله معها إنك سنة كشرية الضباط دقوا قرنينا هذا هيك دوا عندوني يا soo cali ma yahay oo wasiirkii deegaanka ma garan maysaa waxaan doonayaa in laabta iska garaaco doorashada soo socota raggii Hargeysa joogay ee aan soo garanayno xisbiga kulmiye gidaarkiisa socod ku dhigsiyo codkii 2010 ragga dhulka yaacay xisbiyada kale imika oroleynaya kulmiye ka baxay xisbiga taariikhdiisa war uma hayaan taariikhdiisa aniga iyo raggan xinif iyo kamid iyo ragga la weydiiyaa halka gidaar kulmiye ku dhigsan yahay raggaanu saaxiibka nahay 120 kuralka ugu dhigsan yahay ee madaxweyne Siilaayo ku soo saaray ee 75 kuna uu gobolka Togdheer ugu dhigsan yahay inaan dhaafaan doonayaa 75 120 inaan gaarsiiyaa doonayaa dabadna waxaan doonayaa in madax xisaab taago oo aan dabadna sidii ina Cabdulla Xasan aan gabiyo أنا سيدي قري قرار سنة وبحي قرب كمان تاقو وحن قوت كي قصاران هي قلي أحمر موج هذا الكيس قد داي أرد دول قاسي كسعطا حسبي يروح على كسر سيدنا يبقى لها أصلا وبحنا ووحو الشيقة بعنهين تاريخ دبور اللقود با عن عيد النوغة والرمين قدومية عن عيد النوغة والرمين هل جنبان عيد النوغة الشيكين ورقي درتن جيف جري تاريخ ذا وين بينو كسعنا وحين وسعنا أنا وحوي سومال لنا هي دي مستقبل كذا نوسعنا وريا سومال لنا لقوا أمريكا كروي وريا هالكا كسي وده كروي وريا اعتراف قارسين كروي والحمر إمك واحد ما دا كونفريد دايمك وحقا ما يكبر برسيري ساي وريا نقهر جيناوي حزب الدستوسة يلا بابا أنا الدستوسة يو أمي ضبينا يوم أنا قرني ورحوا كحية ورحوا كسعلا وربا الصوماليا وربا الصومال مر خوست كدوسة يو سكرش رأي فرماتشو مرحي عنك السوري يو وروح أنت عبير رجي كنت قال لي يبغى الدنيا رجي كل دي لها يبغى الدنيا مالك كسوحر لها جيل الصوم مال ما على لك كسوحر هل كان عنك كسوحر هذا تاس كسوحر ولا كور رجي مال ما على كسوحر لها لو باهي رجي لو قاعد يروح فديا إلى مدحوينه هالكاف فديو وحسب قال له بتجرسدي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته